munaasabadan oo lagu qabtay dugsiga sare ee Alwaaxa oo kamid ah iskuulada ugu faacaweyn deegaanada Puntland ayaa ahayd xaflad lagu sagootinayay ardayda ka qalin jabinaysa fasalka afraad ee dugsiga sare. Gudoomiyaha ardayda iskuulka Alwaaxa Sakariye Nuur Faarax ayaa u mahadceliyay ardaydii ka soo shaqeysay xafladan quruxda badan iyo jaamacadda Bariga Afrika oo sheegay in ay dhinacyo badan ka taageerto iskuulka. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. aad bay u mahadsan yihiin ardaydii gabdho iyo wiilal lahaa guddiga sharafta badan ee halkaas fadhiya ee mataqaanaa ka soo shaqeeyay munaasabadan qiimaha iyo quruxda badan guddigaas waa ay mahadsan yihiin ilaahay ha sharfo adduunyo aakhira waxa weeye ma garanayo eray ka muhiimsan oo ka soo kooban oo aad mahadsantihiin wax weyn bay qabteen ilaahay ha sharfo adduunyo aakhira guddigaas waxa weeye ardayda intay mataqaanaa dadaalka intaas le ku bixiyaan saaka munaasabadaas sida u farxadda badan inay noo soo agaasimaan waa uga mahadcelinaa waa ay ku sharfan yihiin waana mahadsan yihiin abaalka ay ardayda Alwaaxa u galeen waxa weeye ma gudi karno intaas kadib waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo jaamacadda Bariga Afrika farceeda Garowe oo ah mataqaanaa institutionka ama xarunta kaliya ee ina caawisay intii barnaamijkan aan ku jirnay ee inagu caawisay taageero hiil iyo hoob leh oo mataqaanaa dhinac kasta taabanaysa aad baan jaamacadda Bariga Afrika farceeda Garowe arintaas uga mahadcelinayaa waxaan rabaa mataqaanaa sidoo kale inaan u mahadceliyo warbaahinta barnaamijkan iyo barnaamijyadii kale ee intii aan meesha joognay sida aadka noola shaqeeyay oo maanta ay nala joogaan mataqaanaa Jubaland TV oo ayuu ka joogo iyo raadiyo Garowe iyo raadiyo Sahan waa ay mahadsan yihiin. maamulaha iskuulka Alwaaxa Cumar Aadan ayaa u hambaliyay ardayda maanta ay sagootinayaan isagoona kula dardaarmay in ay sii wataan waxbarashadooda marka ay dhameystaan dugsiga sare. ardayda foonfoorada oo saaka ama maanta halkan aynu ku joorno xafladoodii sagootinta iskuulka xaflad kala jirto oo la dhaho xafladda qalin jabinta xafladda wali lama gaarin laakiin tan waa sagootinta iskuulka ardayda aad iyo aad baan u mahadinayaa ardaydaasi saaka way idin la hadleeno masiyooyin khaas ah oo fara badan bay marka Alwaaxa gudaheeda leeyahay ku leeyihiin halka ugu horeeyaba haddaan idhaahdo markasta foonfooradu waxay galaan imtixaan centralized ah aqoontooda iyo qaabkay wax u qaataan iyo say macallimiinta u ajeebaan iyo aad baan loo qiimeynaa ardaydaani waxyaalaha aad loogu xasuusto waxa kamid ah wax qabad aan caadi ahayn xaqiiqatan oo haddeerta aad ogeydeen hadday gabdhiyo wiilba tahay waxyaalaha iskuulka ka qabteen saaka hortiina laga tiriyay aan hadda kuma soo koobi karayn xataa waxay wax ka qabteen waxyaalaha future ka dhici doona oo ah sida imtixaanka tartanka Ramadaanka oo kale soo socda qalabkii lagu gali lahaa iyo wixii iskuulka Alwaaxa dhan uu ku hawlgali lahaa oo jawaano ku xirxiran oo diyaarsan afka ka tolan ba hadda iskuulka dhexdiisa yaala. Abdulqaadir Maxamed Cabdi Jubaland TV Garowe.